صدقي بشي سيدات 2020 waxaan halka ka iclaaminay in aan gudbinay warqad dacwad ah oo gudoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo qoray una qoray hay'adaha dawladda ee amniga kala duwan. Dacwadaasi waxa ahayd hanjabaad loo soo hanjabay afayeenka xisbiga baadidoonkeedii iyo inay dawladda hay'adaha ammaanka wax ka soo qabtaan. waxaan geynay hay'adaha kala duwan ee u qaabilsan amniga qaranka wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska barasaabka xeer ilaalinta xafiiska CID-da talisiga guud ee ciidanka booliska waxa ka soo wareegtay muddo 3 bilood maanta wax yar dhiman waxa lala yaabo runtii waxa u gudbinaynay waxa ahayd in aan marno sifihii sharci ee qof ka cabanaya ama xisbi cid ka cabanaya oo uga dacwan lahaa dacwadaas waxa ahayd afayeenka ayaa loo soo hanjabay waxa loogu soo hanjabay dil inuu yiraahdo waxaan kugu dilayaa magaalada Hargeysa markaan CID-da geenay way naga qabteen waxa anaga baahi doonayna 3 bilood inta u dhaxaysa gudahood waxaan kala shaqeynay CID-du si ninka soo qaban lahayd marba heer bay marisay intii horeysay waxaan ku dadaalay sidii ninka loo aqoonsan lahaa dadday ninka la aqoonsaday maalintii ninka la aqoonsaday ee sawirkiisii la helay ay noo soo gudbiyeen iyaga CID-du aan isla aragnay iyo halku degan yahay goobta waxa bilaabatay dib u gurasho waxay dib u gurashada ku bilaabatay goobta uu degan yahay cid uu noqday waxa lala yaabaa goorma ayay noqotay ay ka bilaabatay Somaliland maraxanimadii taliska siyad bar lagu yeedan jiray ila orjina ka soo maraxaano badisa lama garo goormay noqotay in magaalada Hargeysa ay gaangis intay ka dhex bilaabanto ay rag mas'uuliyiin xisbiya oo xisbi qaran inta dil ugu hanjabaan marka la aqoonsado la soo qaban kari waayo waa sumcad darro Somaliland maanta ku gadaaman waxa nasiib darro oo aad wax looga xumaado ay tahay booliiskeena ama hay'adaheena amnigu waxaan ognahay inay ku filan yihiin sirdoon ahaan iyo sugitaanka amnigeena oo dhan xataa daliil ku ah in yaro ka soo heestay xamar iska daa'irbood oo dhul soo maray ayaa tuulo ka soo istaagan lagu qabanaya ciidanka og ama security-geena og ama ina keen xamar ka imanaya soo heesay ama mare buluga xidhan ee gidaarku taagan yahay ku qabanaya ma waxaan oran karnaa waxay qaban kari waayeen inaka hudeel guleed dabadiisa degan ee la garanayo ma oran karnaa waa ceeb weeyaan waa loo bareeray waxa halka ka cad boolisku ninka booliska maamula in aanu sharciga dadka ugu cadaalad sameeyeen way caddahay waxaan ku noqonay oo aan ku noqonay taliska CID-da mar kasta waxay noo sheegi jireen inay barigelinka daba soo qabanayaan mar 2 3 4 5 midna ma inta aan ku noqonay intaaba taliya CID wuxuu noo sheegay inuu soo qabanayo oo qaar ku taagan waxaan soo ogaanay in kaasi jufada uu yahay inaan loo soo qabanaynin inaka Hargeysa degan ee la aqoonsan yahay ee adeerkii loo yeeray walaalkii loo yeeray ee su'aalo lagu weydiiyay ee leeyahay ninkaas ka sugana ee la hadda la soo qaban laayay war waxaan u aragnaa inaan sharciga loo sineen sabab kale oo loo soo qabanayna jirin waxa godmado ku dhacaysta dimuqraadiyadda Soomaaliland in cid ka soo horjeeda kulmiye ama wax ka sheegta in isla habeenimada laba diblo loo soo qabto cid iyaga ka dacwoonaysa ama taageereyaasha ka dacwoonaysa ama kulmiye dhexdiisa ka dacwoonaysana inaan loo dhaqaaqin waar kan iyo kan buu muwaadin booliskuna ma dawa u dhax waxaan taliska booliska ogeysiinayna inay joogi doonaan horena ay u joogeen inta soo dawladooda ay dalka soo mareen noocan ay u shaqeynayaan nooc dawladda u shaqeynayaan ay ahayn waxa dhacday oo habeen madow lagu qaaday oo taliyaha boolisku amarku wuxuu lagu qaaday afayeenka xisbiga iyo xogayaha guud ee xisbiga dhaliil ay ka sheegeen xukuumadda kulmiye waxay wax ka qaban laayahay oo nasiib darro ah nin dil ku hanjabay inuu magaalada Hargeysa dhex maray oo la aqoonsan yahay la gartay sawirkiisa
kale xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani wuxuu sheegay haddii aan sida ugu dhaqsaha badan sharciga loo horkeenin ninkaasi inay kasbi ahaan sawirkiisa iyo macluumaadkiisaba la wadaagi doonaan warbaahinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan mas'uuliyadda halkaasi ka dhalatana ay qaadi doonto xukuumadda Soomaaliland waxaan maanta sheegaynaa haddii ay sida ugu dhaqsiyaha badan ninka sharciga horkeeni waayaan waxaan haynaa sawiradiisii waxaan haynaa halku ka soo jeedo ummadda ayaan la wadaagi doonaayo waan soo bandhigi doonaa taasina foolxum ay ku noqon doontaa qarankan iyo ummadda waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu celinaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan soo afjaraan haddii ay soo afjari waayaan ummadda soo bandhigi doonaa annagu Cabdi Rasaaq Axmed Koronto Sunis TV Hargeysa